الحمد لله waxa aan hadda soo saarnay markii aan waqti badan gelinay habeen badan aan u dhafarnay waqti iyo juhdi badan aan gelinay waxa nooga soo baxay shirkaan u soconno horta waxa weeye waa shir doorasho federal level ah maaha state level haddii marka federal level uu yahay oo heer federal uu yahay maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka federaalka inay qayb ka ahaadaan ama hawshaan ay tahay hawshooda inay tahay maxaa yeelay ma aha state level ma aha iyagu walaalahay madaxweynayaasha iyagoo runtii ku adkaystay ama ku adkaa inay soo celiyaan seat yaa waxay ay ku qanceen in uu yahay doorashadan doorasho federaal ah oo loo baahan yahay in guddigaas madax bannaan uu hogaamiyo waana ku mahadsan yihiin inay la qaateen waxa kale oo aan ka hadalnay si loo muujiyo maturity ama biseel siyaasadeed muddo dheer ka bacdi inaan gaarnay oo aan ka gudubno heerkii dadku ay isu xulufaysan jireen qabiilka iyo qabyaaladda inaan xoogaa aan u ekaano dad xadaarad leh oo ilbaxa ah sida adduunka ay siyaasiyiinta adduunka ay u dhaqmaan in aan gaarsiino heer axsaabta badan inaan gaarsiino oo qofku uu isku identify gareeyo ma aha qabiil iyo heeb mabaadi iyo axsaab oo qofka ka soo galaya kismaayo uusan u arag keliya kan kismaayo keliya inay isku xulufo yihiin kan boosaaso ka imaanaya inay isku xulufo noqdaan uu dhegta ku hayo yaa kaaga soo baxay qardho yaa kaaga soo baxay boosaaso yaa kaaga soo baxay gaalkacyo uusan keliya fiirin qabiilkiisa inta qof oo ku hareeraysan marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyeysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo annagana aan u muuqanno inaan bislaanay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadana waa isla qaadanay waa ku mahadsan yihiin walaalahay waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin hal qofna uusan kontroolin degaanadoo dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashadu waxay tahay